السلام عليكم وإن سلامي أصحاب تقاليga waxaan kaga mahad celinayaa sida quruxda badan aad like inoogu saarteen fiidiyowgii hore fiidiyowgan waxaan idinka rajeynayaa sidaas isi kasii wanaagsan in like inoogu saari doontaan sheekadan maanta waa sheeko xiiso badan intaanan bilaabin waxaan idinka codsanayaa inaad fiidiyowga like inoo saartaan subscribe na dhaataan channelka haddii aad ku cusub tihiin oo ay tahay markii idinkugu horeysay aad soo booqataan waxaa kaloo u mahad celinayaa asxaabta commentiga uga soo jawaaba xiraalayaasha iyo su'aalaha sida wanaagsan u soo qora way mahadsan yihiin dhammaantood aad baan ugu mahad celinayaa sheekadan waxay ka dhacday xaafad nabad ah welibana aad u qurux badneyd xaafadda waxaa deganaa dadyo kala duwan intooda badanna waxay ahaayeen beeraley iyo xoolo dhaqato waxaa ka mid ahaa famil ayagoo ahaa kuwa aad isu jecel nin lagu magacaabo gayaal iyo xaaskiisa saara waxay dhaleen 2 ubad ah oo ayagana aad u yaryar waxaa lagu magacaabi jiray wiilka Oscar gabadhana Lily waxay ahaayeen kuwa mar walba isla ciyaara oo waxay ku ordi jireen keymaha keentana waxaa deganaa oo weliba god weyn ku lahaa jinni yar oo lagu magacaabo Hack waxa uu ahaa mid meesha ku caajisay sababtoo ay tahay kaligiis ayuu joogi jiray welibana ma uusan lahayn wax asxaab ah iyo weliba wax qaraabo ah intaa kadib waxa uu go'aansaday inuu dadka ku ciyaaro asaga maadaama uusan lahayn dad ula sheekaysto habeenkii intuu soo baxo ayuu dadka ka cabsin jiray wayna ka kala carari jireen dadka aad ay u dhibsadeen intaa kadib waxay sameysteen shir welibana waxay go'aan ku gaareen inay iska qabtaan Hack welibana uusan mar dambe dhibin habeenkii oo dhan way tashanayeen balse markii guryahooda kala aadeen oo ay habeenkii sii madoobaaday oo ay mugdi noqotay maxaa dhacay ninkan waxa uu rabaa mar walbo inuu ku ciyaaro dadka godkiisana kuma jiri karo Hack waa soo baxay kadibna waxa uu go'aansaday inuu guri ugu booqdo dadka si uu prank ugu soo sameeyo oo soo baxay isagoo weliba si toos ah u soo aaday gurigii koobaad ee xaafadda kadibna gambaleelkiisa ayuu bilaabay inuu ku ciyaaro waa uu gargaraacay gambaleelka guriga kadibna nalka ayaa la daaray naag ayaa ka soo baxday oo lagu magacaabay Sarah yaa waaya ayay tiri hallo yaa hurdada naga kiciyay waan hurdayay oo qofkan igu ciyaaraya kadibna aad bay u dhibsatay hurdadii laga qasay waxa ay sameysay way garan weysay maxaa ka khaldan dadkan ay istiri kadibna albaabka ay si xoog u xirtay qolka ayna ku laabatay wayna sii seexatay idoo nalka damsatay intaa kadib Hack waa ku soo laabtay isagoo weliba aad u qoslaya markaan haddana wuxuu ku sameeyay isla aragno waxa uu sugaa waqti yar kadibna waxa uu yiri mar labaad waa inaan u gargaraaca gambaleelka kadibna gambaleelka ayuu dan ku yeeriyay oo ku gargaraacay habeenkii waa xilli dambe naagtan way seexan weysay waxayna go'aansatay inay banaanka fadhiisato si qofku dhibayay ay u disho indhaheedii way madoobaadeen hurdo la'aan daraadeed intaa kadib Hack gudaha ayuu soo galay guriga welibana waxa uu arkay bombalayaashii ay ku ciyaarayeen Lily iyo walaalkeed Oscar kadibna waxa uu go'aansaday ayaga laftirkooda inuu prank ku sameeyo kadibna bombalayaashoodii ayuu qabtay waxa uu ku sameeyay miiska hoostiisa ayuu ka galiyay miiska ayuu dusha ka saaray intaa kadib subaxdii markii la gaaray Lily way soo carartay hooyo bombalayaasheedii ma yaalan ayay tiri guriga way maqan yihiin waanu naxsanahay yaa iga xalay tugmi ay imaaday maya hooyo meel khaldina dhigata ayaa laga yaabaa balse dhib ma laha waa ku soo raadinaya ayay ku tiri gabadhii way iska oysay habeen kale ayaa fikrad ku soo dhacday Hack welibana waxa uu go'aansaday inuu tago moorada xayawaanada lagu xareeyo kadibna waxa uu yimid 2 saac oo uu lahaa gayaal kadibna waxa uu damcay inuu ayaga prank ku sameeyo welibana labadooda sayn oo isku xiro wax yar oo fikir kadib waxa uu go'aansaday inuu isku xiro 2 saac kadibna uu ka tago haye maxaa dhacay 2 saac saymahoodii ayuu isku xiray sicihii markii arkeen in sayntooda lagu dhagan yahay ayay waxay bilaabeen inay qayliyaan oo ay ordaan ay meesha jijibiyaan meeshii oo dhan ay boor ka dhigeen welibana way yaaban yihiin maxaa khaldan ma carari kartid miya labadooduba way daaleen nafta ayaa waxay ka timid dhuunta kadibna waxay bilaabeen ayagoo yaaban inay iska nastaan intaa kadib waa soo baxay Hack isagoo weliba raba doorada inuu prank ku sameeyo ama digaagada sadqaalid waxa uu arkay ukumo badan ay leeyihiin kadibna waxa uu yiri ukumahan ka qaad ukumihii ayuu ka qaaday 3 dooro ee meesha joogay kadibna waxa uu geliyay coos hoostiisa coos ayuu ku qariyay ukumihii intaa kadib subaxdii markii la gaaray waxa yimid gayaal oo weliba arkay
siciisii oo aad u daalan welibana saymaha isaga xiran wax alaala wixii meesha ugu jirayna way jijibiyeen. aad buu yaabay. yaa sidan kaa yeelayo yiri sacahaagii masaakiinta ahaa qofkan yuu yahay. intaa kadib gayaal waxa uu bilaabay inuu ka furfuro ayadoo ku qaadatay saacado aad u fara badan inuu kala furo labada sac. kadibna waxa uu bilaabay inuu hagaajiyo. waxaa kaloo yimid wiilkii Oscar ahaa. waxuuna arkay dooradii oo isdagaalaysa welibana aad u qaylinaysa. waxa uu dareemay inay wax ka qaldan yihiin. waxuuna arkay meeshii ukumaha ay ku fadhiyeen inay ukumaysan aalin. labadan digaag way isku dagaalayeen hal ukun oo anigaa leh iyo anigaa leh ay ku jiraan. mid walbana waxay rabtaa halka ukun ee soo haray inay qaadato. wiilkan ayaa dareemay in ukumaha laga qariyay. kadibna waa uu soo baxayay. waxuuna soo helay ukumihii dhammaantood. waxuuna u keenay digaagadii ukumahooda ayagoo qanacsan ayay soo daba raaceen. kadibna meeshoodii ayuu ugu shubay. wiilkii ayaa ku yiri waxaan oo dhan waxaa ka dambeeya haag. isaga ayaana qasay. aabihii waa uu xanaaqay. waa isaga ayuu yiri qof kale ma noqon karo. waa inaan qorshe aan keenaa. dadka xaafadda oo dhan ayuu dhibay. dadka qaar dharka ayuu ka jeexjeexaa. qaarna guryaha ayuu ka jijibiyaa. dadkii oo dhan waxay bilaabeen inay shir mar labaad yeeshaan si ay isaga qabtaan haag. gayaal oo ahaa odayga xaafadda ayaa waxuu la yimid fikrad. waxuuna ku yiri fikradeeda iga dhageysta. ninkan waa iska qabanaynaa waana iska dhicinaynaa hana ka walwalina. waxuuna bilaabay inuu fikradiisa la wadaago. ayagiina waxay ku yiraahdeen waad saxan tahay. kadibna waxay soo aadeen beerta ayagoo weliba bocor ka soo qaatay gabar beeraley ah. intaa kadib bocorkii ayuu mindi intuu u qaatay ayaa waxa uu bilaabay inuu farsameeyo bocorka. welibana waxa uu sameeyey af cabsi leh iyo indho ka daran. welibana bocorka waxa uu ka dhigay wax mucjiso ah. kadibna waxa uu ku yiri sidan ayaad ka dhigaysaan bocor badan. kadibna guryihiina aad dhex dhiganaysaan. waxaana ku daaraysaan nal. markuu yimaado haag isaga ayaa baqi doona. welibana waa uu ka carari doonaa. dadkiina way ku raaceen. fikrad fiican ayayna u arkeen. intaa kadib qof walba waxa uu bilaabay inuu bocorka sidaas ka sameeyo. haddana uu dab ku daaro. daaqadaha ayay saarteen iyo albaabada. gayaal haddana fikrad kale u keeno. wuxuu ku yiri waa inaan si fiican uga naxsanaa oo aan anaga baranki weyn aan ku sameynaa. kaale bocor weyn ila dhisaa. welibana aad u cabsi badan. ninkan haag la dhahayo cashir fiican waa inaan u dhignaa. sidii ayay ku raaceen. habeenkii markii la gaaranay waxaa yimid haag. sidii caadada ahayd waxa uu bilaabay inuu guriguri usoo booqdo. mar alaala markii isku dayay inuu yimaado guryaha dadka ayaa waxa uu arkay wax isaga argagax geliya. waa uu baqay. bocorkii markuu arkay wuxuu mooday ciidan iyo askar isaga loo soo diyaarsaday welibana loogu talagalay inay isaga qabtaan. waa uu baqay. welibana waa uu argagaxay. waxaan maxay yihiin ayuu yiri. cidan ka tag ha u soo dhawaanin ayuu yiri. ciidaha kale iska aaso way cabsi badan yihiin cidaane. siduu u socday xaafadii oo dhan ayaaba waxaan ka daaran yihiin. aad buu ula yaabay. maxaad samaysaa maanta adiga ayaa lagu hayaa ayuu yiri. ciidankan hadday ku qabtaan way ku dili doonaan. alla maxaan sameeyaa. aad buu walwalsan yahay. waxauna raadinayaa hal cid oo baraanka ugu sameeyo caawa. siduu u socday ugu dambeyn wuxuu ku yimid gurigii u dambeeyay oo uu lahaa gayaal. kadibna waa ku soo degtay. tartiib ay ugu soo taagsaday. waxa uu arkay wax ka nixiya oo aad uga argagax geliya. kadibna waxa uu yiri kan baahal ka weyn waa baahalaha dham taliyahooda. gacmo ayuu la soo baxay. aad buu argagaxay haag. waxa uu yiri maanta baxar ayaad gashay. gudkaaga ay biyo kugu soo galeen. isagoo baqaya ayuu cararay. weliba waxaa soo food saartay cabsi aad u fara badan. alla maanta taliyahoodii ayaa u tegay. alla nimankan ciidan ay keensadeen. dadkan way iga naxsanayaan. maxaan sameeyaa. ibadbaadiya ayuu ku qaylinayay. intaa kadib bocorkii weynaa waxaa ka soo baxay gayaal iyo weliba dadkii xaafadda oo isaga ku caawinayay inay baraankii ku sameeyaan haag. weliba caawa dadka xaafaddu way faraxsan yihiin. xaaskiis gayaal ay saarahayd ayaa tiri maanta waan guulaysanay. welibana waan ka guulaysanay jinnigii yaraa. haa ayuu yiri waan ka guulaysanay. waxaa yimid meeshii caruurtii ay dhaleen gayaal iyo saara oo lagu kala magacaabi jiray Lily iyo Oscar. kadibna Lily waxay tiri aabow waxaan u malaynayaa jinnigaas yar inuusan xumayn balse ay cidlo welibana u baahan yahay wax uu la ciyaaro annagana aan fahmi weynay. intaa kadib iska go'aansaday inuu annaga habeenkii nagu baashaalo. waa saxantiina ayuu yiri waa laga yaabaa miskiinkan inay kalinimada u geysatay inuu dhibkan sameeyo. waxaan u malaynayaa inaan khalad galnay. waa inaan iska cafinaa miskiinkan isagana aan cafis weydiisanaa. haye ayuu isku raaceen
intaa kadib dadkii xaafadda oo dhan way la qiiroodeen waxayna go'aansadeen inay u tagaan Haag kadibna ay soo raaligeliyaan. Dadkii oo dhan waxay soo aadeen godkii uu deganaa Haag ayagoo weliba u yimaadeen. Haag waa uu la yaaban yahay maanta dadka waxay ka rabaan welibana isaga ugu mashquulsan yihiin aadna wuu u baqayaa. Maxaa ka khaldan ayuu is yiri dadkan waa uu ka dhuuntay godkiisa ayuu gudaha u galay. Kadibna waxaa lagu yiri ha baqin anaga kuma rabno inaan ku dhaawacno waxaan kugu imaanay kaliya inaan ku raaligelino. Waxaan dareennay inaad cidla tahay welibana aad inoo dhibi jirtay cidlada ku haysata awgeed balse maanta waxaan rabnaa inaan kula saaxiibno welibana mar alla markii aad cidlooto aad noo timaadid adigoo si wanaagsan noola cayaaraya. haa ayuu yiraahdeen caruurtii xateer anagana waa ku jecelnahay saaxiibkeena ayaa tahay balse waa naga cabsiisaa markaas kadib waan kaa dhuumanaa adiga lase waxaa tahay qof wanaagsan waxaan kuu milan jirnay qof xun. Kadibna wuxuu ku yiri haa waa runtiin aniga wax saaxiib ah ma haystay balse haddaad saaxiib ila noqonaysaan waan ku farxi lahaa mar dambena ma idin dhibayo. Waxay ku yiraahdeen soo dhawow saaxiibkeena ayaa tahay hana baqin mar walbana waa isla cayaaraynaa. wuxuuna saaxiib khaas ah la noqday labadii caruur ee Oscar iyo Lily ahaa. ugu dambeyntiina waxay isfahmeen dhammaan dadkii xaafadda isagoo ka joojiyay dhibka welibana wuxuu ahaa mid caawiya mararka qaarna waxa uu soo qaadi jiray alaabaha ay u baahan yihiin isagana waa uu ku faraxsanaa arrinkaas welibana waxay noqdeen kuwo isku fiican. waxaan soo gaarnay qaybtii su'aalaha fadlan haddii aadan like inoo saarin like waan ku xasuusinaya haddii inoo saar subscribe na saaro channelka oo ka mid noqo asxaabta ku xiran gambalaalkana furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya daawada sheekadan soo gelino halkan. su-aashu waxay ku leedahay waxaad sheegtaa caasimadda wadanka Masar ama Egypt si aad u taqaanidbo caasimadda wadankaas ayaa laga rabaa inaad sheegtid.